mar labaad waxa igu dhacday laba nin oo xaafadda ila degan oo xaafadduna waa fogeyd ayaa bariishka deeran la yiraahdo burco qofku markuu ka gudbayo gawaadhidii magaalada isaga gooshaysay boor iyo siiga ay ku kicinayso oo anigoo maalin haddaan lugay naftayga ga baxdo baan arkay iyagoo maray waa laba nin oo asxaabtaas dhalinyaro dadkii iga dambeeyay waan isu taago waxaan siigada iyo boorka ka qaad istaaguna waa adka buundada dhexdeedii waan isu taagay soo fuulamaan mid baan magaciisa garanay Cabdilaahi oo soo fuul uu istaagay oo soo fuulay saaxiibka u yeedh baan ku waxa inuu iska socday intuu saa u soo istaagay buu ayaan ku saaxiibka u yeedhay wuxuu inaga soo eegay gaariga soo fuulay dabeedna intuu la hadlay war soo fuul gaariga markaasuu intuu codka sare u qaaday buu anigu gaari walba iskaba fuulo dabeedna rag baan u sheegay waxaa idhi maalmihii dambe markaa bariishkaa soo baro waxa weeye siigadaa ku kiciya ma dhibaataynayo laakiin waxaan uga jeedaa umaan joojinay